magacaygu waxa waaye Nuur Cali Maxamed walaal meeshan wax yar oo dhibaato ayaan ugu gaartay alxamdulillaah naf hada noogama aysan go'in laakiin wax yar oo dhibaato oo la eg maal ayaan nooga dhumay meeshan dukaamo yar ayaan ku lahayn oo tag shop darteed naftayna ayaan ku maaray jirnay waxaan ugu dhacday galbaha kamida in ay nagu yimideen dad xoomaaye alxamdulillaah budad iyo barawataan sidaas darteed markay yimaadeen waan ka kala cararnay meesha aan goobti ganacsiga aan joognay waan ka kala cararnay markaan ka kala cararnay wixii dhinaxay ayaan ka tagnay ay ka qaateen meeshii guryihii fariijmankii iyo badeecadii ayaga qaateen wixii fariijman iyo waxaan ku shaqaynaynay way naga jajabsheen sidaas darteed marka hadaan ka cararnay police stationka ayaan tagnay police stationka marka aan tagnay wax hadan gooniya oo dareemi karna nalooma qabanin waraaqi ayaana wala qorqoray waraaqihina ma garanayna hada meel la geeyay in qashinka lagu tuuray iyo in alxamdulillaah meel la geeyay ma garanayno wax hada kiisa oo soo dhacay ilaa wiilana ma arkin oo kiisa number aan helnay marka alxamdulillaah ilaahay yaa mahadle oo naftayna noo badbaadiyay maal waa wax la heli karo lana shaqaysan karo waa tahay hadda waxa wadan dhismo dukaamadii maaragta xaafadda wax lagu boobaya dhismo ka wadan rajadiinu sidee tahay hadda maxaa dareemaysaa alxamdulillaah ciidan sideedaba waxa lagu yaqaanaa markii ay wax dhacaan in adiga maalin ama laba maalin kadib inay ku yimaadeen ay ku yiraahdeen sorry ama eragooda oo afkooda hooyo oo oolo ay ku yiraahdeen sidaas darteed marka hadda wax gooniya ma dareemayno oo shacabku waa iska sidiisi dadkii dad wax boobaba uma ekaba ama dad wax ka haleeyay sax ganacsiga dib u bilaabaysan markaa sidaas aan rajaynaynaa laakiin anaka ayaa dhibaato yar na soo gaartay qoraan waxa iga lumay waa sharciyadii wadanka aan ku joognay muddo 5 sano gudahooda maanta wax sharci wadankaana kuma haysto maxaa yeelay boobkii maalin hore ka dhacay Filipiin ayaa lagu qaatay warqadahan aad u jeedaan waa hadda waa guriga aan kasoo bilaabay inaan macnaha kasoo arko sariirka magacyadooda si aan police station u tago magacyadan kale ayaan qortay waa sharciyada magacyadeeda si aan u raasado sharciyada iga dhamay waa taa hadii lacala sharciyadaas aad weyso saameyn inay ku yeeshaan laga yaabaa saameyn weyn ay ugu yeelanayaan maxaa yeelay waxaan u isticmaalaa sharciyadaasi waxyaabo badan dokumentiyo hataa waxaa jira bangiyo aan macnaha ku isticmaalo waxa laga yaabaa inaan lacagaas ku waayo hadii sharciyadeeda aan waayo waa tahay marka qaabka aad ganacsiga dib ugu bilaabaysan oo kale wax sharaxaad inoo sii maadaama maalin hore leedin boobay oo guud ahaan alabtiin la qaatay bal qaabkee haddana idinku soo galaysan ganacsigiina dib u howlgelisaan yaas in ka caawinaya ganacsiga anaga xoogstaaskan waa isiga dhiiranahay ma fahamtay waa tahay marka danta uu qasba Soomaali aan xoogsan waa tahay qof hadda aan la tashanay ama dhahdo soo laa wax ma jirto waa tahay ma fahamtay waa tahay marka problemkana gaarna kulli hadda cod kama qarsan waa tahay marka qaabka dukaanka loo dhaco kale wax ma noo sheegi kartaa dukaanka waa wax oo hadda la reebay meeshaan ma yaalin intaan marka dukaanka hadda hore reemal waa intii oo macnaha adiga hadda waa meesha la wada qaatay inta sax hadda xaaladu ay sii jeedaa oo fijirin baad macnaha ka badbaaday oo qaado waayeen sax أو جدا متركي صح أنا بحسن كلام وصول جلوس صح أنا حرب أسير جدا بقولي يردي يجيب شيء أنا ضد ذا نقول ما صح صح وحان كذا كرنا ما يصير صح قلبتي وشقيني سد دكان كلا كوجرت طبعا صاي شيكتي إن مركز أركتي إن حالده إن يصير نقنيسه وضد إن بوبي ربان محضر أنت هذيك درينان أنا قدرنا دوريس كيف نقول سوما البلد شغله في الدكان أنا راح أقول أنا ما تري سأسأل عنك دكان كان شو ما دارين كان صح دكان كان كوري هوس بالله ما له ضد بغلي في جناي ضد كور صار معي مادن وحنا سمعنا كلام لواي ضد الأفاضي بزلان نغتون فات صح بغلي أو الله فرص ما الله بلغي صح ضد كل حد دفع كلام دفع مش سهر نقعد حافظ تقولي أبا معنا ما أقدر أحكي عنه كيف تبغى أقعدتي وحدا لبدن بالبعرات تقولي وكذا بس لا دعم غلي صح أنا أقول مقعي سكرية محمد محمود دكان كان يكشغينه صح مر هبين تهاي كاستمرك وحنا دحين معناها كبحد دكانك صح dad oo badan oo adiga 100 iyo 200 dhaafayo wato baangada iyo qoryo iyo watana nagu imaadeen sax markaas ayna dhaxeen ay dukaanka waa soo socdaa marka customerka agteeda joogo oo dadka driskeena hayran dhaxeen ka soo bax marka waa ka soo baxnay dukaankii kulli marka waa sidee u qaateen waa ta hadda meesha taagan tahay waxa la sheegay in dukaan ahayd
marka dukaankan gabigiis buu maqan yahay hadda maxaa ku dhacay asaga qaabkiisa loo gubay meeshan dukaan waxay ahayd jiingad marka wasiga kulligiisa alaabtii markay ka qaateen jiingadii iyo xataa way ku gubeen xataa balangadyaal iyo bustooshin aan hugsanayna iyo dharkeena iyo kulli xataa way qaateen waata wax in kaga badbaaday ma jiraan markaas wax aan ka baxsana ma jirto kulligooda way qaateen waata marka wax laakiin khasaare nafeed oo in soo gaaray ma jiraan maya khasaare wax ma soo gaarin laakiin dukaanka ay way gubeen wixii alaabtii ahayd dhumana naga qaateen dharkaan halaha wadana bis aan ka baxsana. My name is Nondeliso. I'm feeling very happy that our dear brothers, I can say people from Somalia, they're coming back to our community, because otherwise, really, if I'm telling the truth, we are suffering a lot that they are out of our community right now. But immediately after what happened, we did have a meeting whereby we settle everything that they must come back in our communities so that we can have. واتهاي هل كان مid ka mid ah dukaamada Soomaalidu ay ka lahaayeen xaafadan Philippines isla markaana waxa maalmo ka hor goob ganacsi oo in ka badan 3 ama 4 ruux oo Soomaali ay wada lahaayeen laakiin hadda marka aad aragtid guud ahaan dukaanka qiimihiisa kala duwan waxaad moodaa in goobtan ay ahaan jirtay goob qashin quba isla markaana guud ahaan la jabiyay sida idin muuqata daawadayaal qaybtaasi waxa ku yilay daaqadii dadka laga caawinayay halkaan waa iridii laga soo galayay sidoo kale dadka banaabaxa sameynayay waxay ka soo galeen qaybaha kore ee guriga ayagoo guud ahaanba soo jabiyay qaybtaasi isla markaana jabiyay guud ahaanba astaafka halkaan yilay waxa sidoo kale daawadayaal idin muuqda halkaan dhagaxaan aad u weyn oo qaarkood sida la sheegay kor laga soo tuuray oo dadku isticmaalayeen waxa kale oo goobta yaala idin muuqda baakadihii laga bixiyay staafka halkaan yaali oo dadku ay boobeen marka meeshaan alaabta noocaal jirtay dadka mahana albaabku waa noo xiran jiray markaan dadka laga caawin jiray dad oo ku socdo wallahi hadda la xisaab kan inta boqolaha timiday hal togi albaabku la kaceen meeshaan alaabta tinkijiida fariimaanka waxa soo wada ku wada yilay markaas hal togo ku kaceen anigana gadaalanka buudno faan waa tahay marka kor iyo wax may ka soo galeen oo macna korkaana dad ku yimiday jingalooninkan waxaan korontadii dhamaadii waxa wada qaateen albaabada fariimaanka waxa dhamaad wada kaceen alaabta dhamaad sana macna saasi ka wada dhigeen صح عليكم مدعي حسين حسن عدان مالك أفرلاتك بشان مالك الثلاثة واحد اللي حوس كل بقى يدعي وحنو يميد بوقاي ودودا يميدي أنا كنت كان كل حضرنا هدي يميدي وحي بالجبين بقلها أنا كاينو سجلين حوجا وحيوي فيل وحيوين ولفتان ألعبتين وايد بوبين وواكل قاتين في الكيكو في المكي واحد ما وقعتين مرك الحمد لله وحي markii la soo galay marka halkay ka baxdeen markii sayid ku soo gashay baxdaan markii soo galeen waxaan sameeynay markii soo galeen ayaan kala ka hortagnay ay rado uga baxnay صح ma qofood ayna xilligaas waxa ahaynay 4 qofood wata 4 wirda ka baxdeen 4 markii soo galeen ka hortagnay irada ka baxnay waana soo dibadudeen xabashada kaniisadan galna naga dhaceen ku kaniisad waa tahay marka maxay wateen dadka idin bursanay tusaale markay soo galayeen kale maxay wateen gacmo maxay ku wateen waxay wateen maqarro iyo waxay wateen budad iyo waxay wateen dhagxaan waaweyn waxbay wateen oo wax hubaysanay waata dukaanka marka xilligaas ka dhex baxdeen maxaa ka haray oo ka badbaaday maxaa laga qaatay dukaanka hadii soo dhex galeen wixii dhammaay way wada qaateen xitaa bukiska korontada way qaateen tawliidka mushkilada ay tageen tubadii way fogsadeen wixii dhammaay walaxay ka tageen male waata hadda waxa ka soo wareegtay 6 maalin ugu yaraan ganacsigan dib u furaysan xaafadan qaar kamid ah shaqeynaayo oo qaarkood way furaan qaarkoodna wali waa dhismay wadaan sidee ku soo gashay markii aad ganacsigan dib u bilowdaan waxaynu soo gashay shalay ayaan xaafad soo galnay كاستم كحافظ كوميونتي حافظ يجرين سولابت قالت كوا أول دماغي إني قف يدمي سولابت سيدا سايق سولاب ونو كفرنا بسنسك واشا حال أيام فرنا marka waa tahay markii wax dhacayeen adigu waa joogtay waa fiirnaysay dabcan waxa laga markii ugu horeysay in boqolaal qofood oo adigu ku weeraray ay ka hor yimaadaan ama rab inay xoolaha qaataan oo kale inaan laga yaabo dhagta ka maqli jirtay ama aad TV-da ka arki jirto kale marka aad aragtay reality-ga meesha yaala maxaa dareen ahaan maxaa dareentay والله أبتورت مركي ورد جهان كم قادر وحبا سان ليالي وحبا لبورت جهان كم قادر لكن مركي وجهرس وأنا فيس تو فيس أم كاركي هذه مركي أي مدين أو بقلها يسوي استجين جيبس يكون باللابين يعني مسك حديد وقلب كي الدرين كي وايس بدلين هل كمر يسوي جينا برناك أو بحنا نحن بدات سني نلاش أي بد أبو هدي أنا كوشة وماشي أنا واحد كده عوحة وياه أنا جو معلم تسكش غيسان إنه أفر العتنك بيش أي هاد أو حنوسو دولي دad aan garanaynin kulli wax bay ka cabanayaan laakiin anaga wax weyn oo meesha ay nagu soo dideen kulli waxa noola sii sheegay inay pop u socdaan imaankeena u baneysteen
waddanka waxaa imaaday niman ciidana noo imaadeen nafsadeenna noola badbaadiyey waana ka tagnay kadib waa ku soo noqonnay maasha allah hadda waa iska shaqaysanaynaa kolley wax ilaa hadda aan haynana ma lahan kolley laakiin in maalkeena la boobay intaas caddeeyaynaa kolley dhibaatada ugu weyn meeshaan ka dhacday dukaamankeennana waxaa ku jiray inta dukaamanka la boobay ayaan ka mid nahnay waa tahay marka xilliguu boob ku dhacayay adiga ka hor maa ka baxday mase dadkii oo socda kugu yimid kadib waa ka carartay xilliga oo boob ka dhacayay waa joognay kadib ayadoo nagu soo dhawaadayna maqalnay nafsadeenna aan la cararnay kolley dukaankiina way soo galeen maasha allah haddana waanu ku soo noqonnay alxamdulilah ilaahay oo noo badbaadiyey laakiin nafsadeenna waa la soo noqonnay waana noolnan wax kalaas ii sheegay waa tahay tusaale qofka ku daawanaya aana dalka joogin oo kale haddaad u sharaxdo dadka sidii ahaayeen waxa ay wateen qaabkii u socdeen waxa ay dhahayeen oo kale maxaa macnaha qaabkii u sharaxi lahayd dadka marka ugu horeyso waxay wateen baangado way badnaayeen adi ilaa intaasu kuman ay ahaayeen kolley aniga maanan tirin laakiin aad iyo aad ay u badnaayeen waxaa dhacday hal mar ayagoo soo duulay dukaaman kale annaga nagu soo dhegdheganay soo gubeen waa soo cayaaceen oo nagu soo yaaceen oo nagu soo bateen annaga markaa kadib waxaan la cararna waa garan weyna kolley nafsadeenna la baxsanay maasha allah dadka hadda qof iga maqanna waxaan u sheegayaa kolley inaan hadda annaga nala dhacay kolley oo meeshaan aan waxba ku helin oo aan iska soo noqonnay haddana shaqadeen inaan ku noqonnaan rajeeyaynaa hadda tusaale shaqada waa bilowdeen yaa garab idinku siinaa dib shaqada u bilowdaan dadka deegaanka markaa soo gasheen samaxeydin dhahayeen ilaa isaaka markaa aad shaqaynayseen dadka deegaanka waxayna dhahayeen soo noqda waxaas mar dambe dhici maayaan iska soo laabta dukaamankiina ku soo noqda shaqaysta garabna cid aan ka helna ma lahan kolley garab annaga walba annaga waddankan xooggeena u imaanay xooggeenaan ku xamaalanaa ilaa haddana inaan annaga shaqaysanno oo xooggeena ku xamaalanno taasaan sii rajeeyaynaa insha allah. Somalia is right just because if you go to Somalians, maybe you short with something, they can give it to you. But if you can go to our brothers, the black guys, they won't even give you if you are you have a short money. You see, the Somalians, you can go and take a credit there. You pay end of the month. horta magacaygi maxamed macalin maxamuud shuuke ayaan la dhahaa habeenkii ay wax dhacayeen maalintii talaadadii galabtii ayay ahayd marka dad inta ka baxay xaafadan ayaa meel dhankaas tagay kale xaafad kale ku banaan baxeen markii xaafadii markay ka soo laabteen ka bacdi ayay dukaamankii dhankan xaafadayna ku yilay ayay ku kaceen markii dukaamankii ku kaceen bacdigeed anakana waa ku jirnay boobkiina soo gaaray marka qaar tuugaha ayaa anaka noo imaaday albaabkii asagoo noo xiran baangado iyo bistoolado wax bay wateen marka ilaa amarkiis way soo fujiyeen albaabkaasi soo fujiyeen kan dambana waa hadda aan ku tusay marka waxay sameeyeen way anigu carar maagay halkaas bay iga soo qabteen laba wiilo kale la joogtaan halkaas bay ku qabteen halka markay ku qabteen halka adiga hadda aad rorogtaaw ayay ugu tuureen aniga birta weynooda macnaha masaamirta lagu siibo ayay sinta dhankan ay iga mariyeen marka dareemadii xoogay waxba iga taga marka darbaaxsho iyo feer iyo wax walbana way igu sii garaaceen hadana xilligaas maxay ku dhahayeen markii xilligaas waxay dhahayeen qorigii sheeg lacagtana sheeg bay dhahayeen markaas lacag ma ka haya eray tiilkii baan u sheegay halkaas ku yilay waa kaasaan ku dhahay tiilkii halkaas ka raadsadaan dhahay way ku ordeen tiilkii way badnaayeen 10 adiga liistii 12 ay ku dhamaayeen way qabteen way wadeen xagga gadaal bay igeen jiifka lacagtii sheeg ay ugu dhaheen qorigii sheeg bay ugu dhaheen ilaa amarkiis waxba ma hayaan ku dhahay lacagtii waxaan hay waa kuwaas halkaas baan u sheegay markaasi waxay dhaheen garaacmay ugu sii wadeen birtii bay ugu garaaceen inaan baxsadaan isku day 3 jeer way irid bay iga qabteen ilaa amarkiis wixii badar ahay markay meeshii ila ay qabsadeen wixii fariidman ku jiray cabitaan ay qabsadeen markaas macnaha hal nin baa halkan irid roogsaday halkii nima wuxuu qabsaday marka badaradii meeshan yile inuu nagu soo turturo iyo biyihii ayay naqatay markaasaan waxaan isku dayay anigana inaan baxsado markaas halkan baa soo baxsaday ninkii baa halkan ku kala tuuray halkaas baan ka baxsaday halkaas markaan ka baxsanay way iga dawamaadeen ilaa amarkiis way qaba waayeen laabadkaas kale ay ugu qabteen intay hore ka soo wareegeen halkii bay hadana ugu sii garaaceen halkii markay ugu sii garaaceen waa ka sii baxsaday dadkii halkaan oo rogay wax gadanayay dadkii kalena xaq oo rogay markaan ka sii baxsaday idriska u galay oo isku fiicnayna wax xabasha cidii markaan u galay ilaa amarkiis ayakana way carareen labadii wiilo kale ila joogtana ayakana sida loo garaacay way soo carareen ayakana dhankan bay ku carareen ayakana baabuur wax ku sii reenay markaan sii cararayaan marka alaabtina saas bay u qaateen wixii kalena ilaa amarkiis yar kale markaas ka bacdi booliis imaada marka waata ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahad iska leh dadaal dheer fara badan waxaan la falaysanay community-ga
xaafadaha dhibaatadu ka dhacday ee South Africaanka booliiska iyo qolooyinkii hogaaminaya mudaharaadkii Belfield dhibaatadu ka soo gaartay Soomaalida waxa Ilaahay qadaray dadaal dheer fara badan in aan wada xaajood iyo isfahan dib ugu laabanay dadkeenii dhibaatadu ka soo gaartay dukaamadoodii walow dadaalkeenu uu ahaa oo kaliya in aan xal iyo wada hadal ku fahansiino wixii meeshaas ka dhacay alxamdulillah Ilaahay wuxuu nagu qadaray in aan dadaal dheer ka badan dib ugu celinay dadkii locationkii dhibaatada ka soo gaartay haddana waa sidaad arkaysay maanta way ku dhajireen meelihii aad aragtay dhibaatada ka soo gaartay